haddaba waxaad ogaan kartaa faahfaahinta kombiyuutarka aad haysatid adigoo aadaya my computer properties. haddaba waxaad halkan ka helaysaa faahfaahinta kombiyuutarka aad haysatid oo kooban. halkan ka hooseysa kombiyuutar waxaa ku xusan waxyaabaha ugu muhiimsan kombiyuutarka ee lagu qiimeeyo. aan ku soo laabanay sistamka aad haysatid. waxaad ku ogaan kartaa halkan Microsoft Windows XP Professional, maalanba vershinkiisu waa 2002. haddii vershinkaagu sidan yahay waxaad ogaan kartaa inaad la socon kartid vershinka aad haysatid nuucu yahay Surface Pack 2, Surface Pack 3 iyo Surface Pack 1 midkuu yahayba. maalanba haddaad iibinaysid kombiyuutar waxaad u baahan tahay in macluumaadkan aad haysatid ama aad u baahan tahay inaad wax ka fahantid siday u kala wanaagsan yihiin kombiyuutarada. haddaba Microsoft Windows XP Professional waa kan ugu wanaagsan operating systemada la isticmaalo maanta. vershinkiisa oo 2002 ana waa iska normalo, wax sidaas oo ma baahna. laakiin Surface Pack 2 ayaa muhiima inaad aad uga fikirtid. haddii aad haysatid Surface Pack 1 waxyaabo fara badan ayaanu kuu qabanayna, sida abdeydyada aad soo dejinaysid softweerada qaar oo aad laga yaabo inaad xaajooyin uga baahan tahay sida taleefanada, oo hadhow caqabad ay kugu noqon karto Surface Pack 1 inaad ku isticmaasho iyagoo kaaga baahan inaad upgrade ku samaysid oo aad u bedeshid Surface Pack 3. inkastoo Surface Pack 2 uu aad u wanaagsan yahay, isna uu Surface Pack 3 ku soo xigo. halkan waxaad ku ogaanaysaa nambarka kombiyuutarkaaga magaca uu haysto iyo registrationkiisa. waxaa ku xiga qaybta ugu muhiimsan kombiyuutarka ee la qiimeeyo oo ah Intel Pentium 4, CPU-giisuna uu yahay 1.80 GHz. haddaba kombiyuutarka waxyaabaha aad loo qiimeeyo oo 1.79 GHz iyo 504 MB, oo halkaasoo laptop haddii aad haysatid ay muhiim tahay in raamkaagu uu yahay in ka badan 1 GB. MB waa megabyte, GB-na waa gigabyte. haddaba 504 waa inaf kombiyuutarada desktopka xaggooda haddii la eego, laakiin laptop aad ayaa looga fiican yahay in 500 megabyte aad isticmaashid. tan xigto waxaa in aad xooga u saartid in harddiskigu uu aad u weyn yahay. adigoo aadaya my computer taabanaya C drive, eegaya dhankan hoose details. haddaba beejkan si fiican idinkugu muujiya. beejkan ku dhex jirna waa my computer adoo taabanaya C drive, double click maahan, hal mar unbaa taabanaysa. qaybta hoose ee detailska halkan baa usoo baxaysa adigoo aad shaashada u ilaalinayo. local disk C file systemkiisu waa NTFS oo muhiima badana in lagu formaat gareeyo. haddaba free spacekaan haysto waa 32.4 GB, total sizekaan haystana waa 37.2 GB. laakiin anigu uguma baahni inaan ku isticmaalo softweero fara badan iyo data badan inaan kusoo dejiyo, hase yeeshee waa inay ku filan ani ahaan. laakiin dadka waxyaabaha soo dejiya ama mashruucyo fara badan ku filinaya sida shirkadaha oo kale waxaa aad ugu wanaagsan inay isticmaalaan in ka badan 100 GB, taasoo hadhow ka kaafin doonta isticmaalka daatooyinkooda inay ku xariistaan si fudud. View system information ayaa la mid ah propertieskiiyo data aan ka soo aadnay my computer. haddaad right click ku tiraahdo properties aad taabato, iyo haddaad taabato view system information waa isku mid. waxaana ka soo galnay my computer. haddaba aad ayaad ugu mahadsantihiin la socoshadiina, iyadoo ay aad u wanaagsan tahay inaad ku soo ceshataan cashirada si ay aad maskaxdiina ugu qabato. bahda waxbarashada ee Amar Teacher Education Center oo aalaba idinkugu dadaalaya waxbarashadiina, innagoo idinku soo gaarsiinayna codkeenna halaasiga iyagoo macallimiintan
aan idinkugu hayno halkanna ay diyaar u yihiin in dhammaan ummada Soomaaliyeed ay wax ugu taraan aqoontooda intii ay ka gaarsiin karaanba. wabilaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum.